qoladii dandan joogtay waxaan leeyahay war arrin aanan hadda halkan ka sheegi karin waanu anagu isla ognahay baa jirta arrintaa inay aad iyo aad arrintaasina la-aanteed wax dhaqaaqaya ma jiraan arrintaa inay aad iyo aad isugu dayaan oo ay maaragtay arrin aad u muhiima oo ma garanaysaa midka saka horteeka abaalgale adoonsiga la jira soo mooga horta soo mooga afacaadi inuu cunay soo mooga biyaha ku oonbaxay soo mooga abal inaad ku leedahay soo mooga afacaadi inuu cunay soo mooga biyaha ku oonbaxay soo mooga ama inaad ku leedahay soo mooga amlooga hal inaad tahay soo mooga dhaxalawowa inaad tahay soo mooga isagu inuu ku leeyahay soo mooga. Asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu. halka aad naga dhegaysanaysaan waa idaacadda SSC Radio oo aad ka dhegaysataan dadka telefoonka iyo barta internetka. waxaa maanta barnaamijkayagan waraysiga noogu marti ah Faarax Maxamed Cabdullaahi oo isagu kamid ah jaaliyada qurba joogta reer Qaatumo ee ku dhaqan magaalada London ee cariga Ingiriiska. jamac waxaanu jecelnahay inaanu ka wareysano bal shirkii ugu dhamaaday beel kamid ah beelaha ee reer Qaatumo ugu dhamaaday magaalada London waxa uu ku dambeeyay. Faarax ku soo dhawow SSC Radio. aad iyo aad baan idin salaamayaa waana dhawahay waadna mahadsantiin. Faarax su-aasha ugu horeyso aanu ku jecelahay inaanu ka weydiino shirkaas iyo waxyaalihii ka soo baxay inta aanan u guda gelin waxa weeye bal wax yar waxaa nooga sheekaysaa shirka ka dhacay magaalada London yaa ku qabsaday magaalada shirkaas yaase ka soo qayb galay balse maxaad nooga sheegi kartaa taariikhdii shirkaas? runtii bismillahi raxmaani raxiim shirkaas wuxuu ahaa shir ay qabteen beesha jaamacsiyaad oo ka arinsanaysay arrimo badan oo u yaalay marka tuulada lagu qabtayna waxay ahayd tuulada London oo runtii uu gogosha dhigay aqalka Cabdirasaaq Jaan Cabdibile halkaas oo ay isugu tageen beesha jaamacsiyaad shirku saas ku saabsanaa marka haddii allaba ku run yahay shirku qaabkaas u dhacay. Faarax shirkii dhowr cisho ayuu socday waana uu dhamaaday sida aanu ku aragnay saxaafadda badankeed bal waxaa nooga sheegtaa shirkaas go-aamadii ka soo baxay maxaad nooga sheegi kartaa? horta go-aamada ugu waaweyn oo shir ka soo baxay waa 5 qodob baa ugu waaweynaa oo runtii la oran karo 5 qodob oo waqtigan maanta la joogo muhiim u ah beesha iyo Qaatumo iyo Soomaalida kaleba ayuu ahaayeen. waxa ugu waaweynaa qodobada haddaan qaar ka xuso in for example tusaale ahaan midnimada Soomaaliya oo kale beeshu way taageertay. waxaa kamid ahaa Qaatumo kale taageertay waxay taageertay go-aamadii ka soo baxay Ingiriiska iyo Mareykanka haddii la ku run yahay nabadgelyo darrada ku tilmaamayay maamulkan waqooyiga oo markaa ay beeshu sheegtay in sababta keenaysa nabadgelyo darradu ay tahay dhibaatada lagu hayo dadkan Qaatumo iyo mashaakilkan hadda ka socda dhulkan occupation lagu sameeyay marka runtii aad baa lagu dirsaday qodobadaasana ugu waaweynaa wixii ka soo baxay. waxaa kaloo jiray in beeshu ay runtii ka hadashay in midnimada la adkeeyo in maaragtay fikirka meel la isugu wada keeno in la wajaho xaaladda maanta taalla ku sugan dhulkii waxyaalahaas ugu waaweynaa. inta aanan u gelin arrimaha caalamka iyo qodobadii ay ka soo saareen haddaanu dib ugu soo noqono deegaanada Qaatumo ama gobolka Sool
beesha shirkani ku qabsatay iyadu waxay degaan ama ku tahay rasmi ah inkastoo gobolka cayna ay ka degto gobolka sool hase ahaatee gobolka waxaa haystay in muddoaba maamulka somaliland dadku degaankuna ha u kala badnaadeena waxaa jiray dad badan oo taageeraya maamulka somaliland marka maamulka haddii ay beeshu maanta taageertay inay ka tirsan tahay maamulka Khaatumo maamulka ma toos way usoo wada biireen rayidkii maadaama ay simadii iyo xuqaashii taageereen iyo ciidamadii kale ee markaa ka joogay gobolka Sool ama magaalada Sacanood horta runtii beeshu markeedii hore horeysay iyo dambeysaba horta nidaamkan Somaliland runtii moralkeedu uu ka soo horjeeday si moralana marnaba uma taageerin maamulkan dhulka haysta laakiin waxaa jirtay dadku waxaynu burburkii ka dhaxalnay in fikirada la kala xoogo oo niman siyaasiyiin oo dadka kamid ah ayaa dadka halkaa u jiheeyey dadkoo dhan oomay jiheyne dad bay moogtahay arrintan ku jiheeyeen dadka kuwa laftooda ay ku jiheeyeenna dad ay maaragtay qanciyeen ma ahayn dad maaragtay yani moral ahaan loo qanciyey ma ahayn marka beeshu moral ahaan happy ma ay ahayn si maaragtay moral ah umay taageerin laakiin si kale aad moodo inay maaragtay qaab maaragtay tahriib oo kala ah ayaa qaabka loo galay marka tiina waxa ka soo gaadhay nidaamka Khaatumo oo lagu asaasay magaalada Taleex nidaamkaas oo ay beeshu hadda taageersan tahay marka fikirka farax waa ku fahmay dadku inayan si niyad ah ayaan u taageerin waxa la yiraahdo Somaliland ama maamulka ama kala goynta Soomaaliya hase ahaatee waxaa jirta waa kugu waafaqsanahay in dadka deegaanadaas ay hore u kala qaybsanaayeen maamulka Somaliland iyo Puntland intii ayaan soo bixin SSC ama maamulkan Khaatumo hase ahaatee ilaa iyo 5 sano waxaa jiray dhaqdhaqaaqyo kala duwan dhaqdhaqaaqii SSC da jiray dhaqdhaqaaqan Khaatumo jiray intaasna dadka waxay ugu baaqayeen in ay dadkani kasoo baxaan maamulada kale oo iyagu maamul u gooni ah ay samaystaan waxa ugu dambeeyay taageerayaashii ugu dambeysay dhinaca Puntland oo dhan waxaadna moodaa dhammaan deegaanadii maamulka Puntland uu markii hore gacanta ku hayay oo dhan inay Khaatumo ay mari karto laakiin ama ay tagi karto tuulooyinkaas ay joogaan hadda ma Taleex ay kamid tahay laakiin magaalo kaliya oo Somaliland joogtay la tagi kari waayay marka beeshu haddii ay tiri Khaatumo aanu ka nahay maxay sugayaan ma intay haddana Khaatumo ka burburto siday u burburtay SSC walaal horta waa runta oo waa jirtaa meelo la tagi kari waayay oo nidaamkan la shaqaysanaya ay joogaan iyo nidaamka laftiisu nidaamkan fashiistaha ay joogaan laakiin waxa weeye wax waliba mar bay bilowdaan maamaha baa jirtay ahayd Roma was not built one day marka beeshu hadda waxbay abaabushay fikirka iyo moralkan ah inaan dadku uusan ahayn xagga way jirtay wax qofku ku dhalanayo weeye inuusan nidaamkiisii ahayn qofka Khaatumo qof walba Khaatumo markuu ifka imanayo ayuu ku soo dhalanaya inuusan waxaan wixiisii ahayn laakiin hadda beeshu arrintan ay isugu timi taasi waa mabda Khaatumo isla wada qabto weeye moralka laakiin beeshu imaatinka hadda isugu timi waa good starting waxay bilaabaysaa in yani horta marka hore maadaama maskaxda ku xorooba in maaragtay maadaama dadkii ay isu yimaadeen inay dhaqaajiyaan waxaasina dee waqti qaadanayaan waxay ku xiran tahay sida hadda maaragtay foundationkii loo dhigay oo loo wado oo maaragtay in sida looga mari dhalan lahaa laakiin laa shaki inay maaragtay waqti qaadanayso waana in loo samro oo loo dhabar adeego marka saasaan
faarax bal dadka waxay qabaan qaarkood inuu shirarkan inay dadku hoos wada hadlaan jilibyada ay wanaagsan tahay ama tuulooyinka reer walbana dhibaatada gudahooda taala ay xaliyaan marka magaalada ama laascanood ama gobolka sool waa meesha dhibaatada ugu weyn ay ka jirto adiguna waxaad kamid tahay bulsho weynta oo dadka gobolka sool kasoo jeeda maxay kula tahay dhibaatada weyn kala qaybisay dadku ay garan la-yihiin inay gobol ay wada yihiin ayna nin walbana dadaalka dhinaciisa uu ka sameeyo maxay kula tahay fikir guud ahaan haddaan kaa weydiiyo dhammaan dadka ku dhaqan gobolka sool maxaad se tala ahaan aada oran lahayd dadka wallahi walaale horta taasi anigu waxaan qabaa horta dee magaaladii ugu weyneyd oo qabiilkan khaatuma uu lahaa waa magaaladan capitalka laascanood waa jirtaa in dad gaara lagu sii riixayo laakiin principalka waxa weeye dadkao dhan baa horta wada leh waxyaalaha aada hadda ka dhawaajisay wax dhex yaalaa ma jiraan anusaan qabo wax iska humaagoo la sameeyado wax la taaban karayana aan ahayn laakiin arrinta caafimaadka qabta waxa weye dadka inaan waxba dhex olin waxa ay maanta wada leeyihiin ay wada ilaashadaan hadday gaadhayaan 10 sano kabacdi hadday 15 sano kabacdi gaadhayaan waxa inay dabada ka riixaan oo maaragtay ay ilaashadaan laakiin wax dhex yaalo oo hadeer la oran karo waxaas dhex yaala oo ma garanaysaa weyn oo la soo qaadan karaya ma jirto waxayba ka midaysan yihiinba in cadow haysto oo maaragtay ay cadow gacan galeen marka waana jiraan dad isla beelahan dadkan deegaankan ah oo nidaamkan la shaqaysanaya waa jiraan laakiin dad maaragtay dadkii dee ka iibin karaya waxaan maaha markaynu xaqiiqada ka hadalno dadkii kama iibin karayaano dadku moral ahaan waxaan ma iibsan karayaan marka waan xoogna way leeyihiin dadkaas beelahan kasoo jeeda nidaamka la shaqeynaya ciidan iyo technical way haystaan laakiin dee adduunku ciidan iyo technical layskuma haysan karayo wandhay baa wax ay iska dhamaan kartaa mar haddii aanay jirin wax dadkii laga iibinayaa dee ciidanka iyo technicadu way iska dhamaanayaan waana ku rajo weynahay kuwo badan oo adduunka waxaynu maanta waay arag unahay kuwo badan oo xoog waaweyn oo dadka xoog ugu hanjabayay ayaa markii dambe xaaladooda meel adag ku dambeysay marka xoog keliyaan dad ku haysanaya ma shaqeynayso waxa ay un ku xidhan tahay un dadkani inuu aada isu fahmo oo ka shaqeeyo dantooda oo ay dabada kasii riixaan ugu dambeyntii faarax adigoo mahadsan maxaad oran lahayd qaas ahaan beesha aad fariinaad halkan aad jeceshahay inaad uga dirtid iyo guud ahaan dadka reer qaatumo oo dhan in ay adoo ka faa'iidaysanayo fursadan horta runtii waa fursad fiican beel ahaan horta beesha anigu aan kasoo jeedo oo hoose oo hadda dandan ku shiraysay waxaan usoo jeedinayaa nimankii dandan ku shiray horta aada baan u salaamaya oqaashii iyo garaadkii iyo ragyaalka isugu tegay nin garboodkii aada ba umahadsan yihiin laakiin waxaan leeyahay war hawshu intaa kuma dhamma waxa weeye hawl badan baa inoo taa kuwan dibadda jooga haddii aliba kuu run yahay beesha ana waxaan usoo jeedinayaa war innaga layna soo eegayaa aynu midowno dhifnasoo dhexdeena aan ka wada hadalno yaryar aan wax weyn ahayn qoladii dandan joogtay waxaan leeyahay war arrin aanan hadda halkan ka sheegi karin waanu anagu isla ognahay baa jirta arrintaa inay aada iyo aada arrintaasina la-aanteed wax dhaqaaqaya ma jiraan arrintaa inay aada iyo aada isugu dayaan oo ay maaragtay arrin aada u muhiima oo ma garanaysa culays weyn leh oo anigu aan ogahay oo arrintaa loo baahan yahay in maaragtay ay aada u eegaan oo ay ka daba tagaan oo sidii ma garanaysa ayaan iyagana ka rajeynaya qolyahaas arrintaa inay aada uga daba tagaan marka qoladan dibadda annaga ana waxaan leeyahay oo niman yahow hawl baa inoo taalla waa inaan samaysanaa fikirkaas inaynu sii adkayno khaatumo ku xidhno innaga lafteena isqanayno ujeeddaynu wada leenahay halgankii ma dhammaan waa bilow taa iyada waxaan leeyahay beesha hoose beesha khaatumona waxaan leeyahay war khaatumo nin lahi ma jiro dadkao dhan baa iskale fikir la abuuray bay ahayd waxaan usoo jeedinayaa khaatumo in maaragtay ay qoraal dastuurkii khaatumo la qoro inaynu ku xisaabtano dastuur
وأن دستورك كلا بحنو وضبط قرنين أنه نقولنا وأنقف ننقف ستة ننقف كلا ستة أنا يقول يسمو غني أنه كلا بحنا دستور في إنه هوشيني وحينه هرسنا أنه لما يسمو هلكن كان هلكا كسي وضنا نقول من أوجاد هلكن كي إنه وري ديري هاي وأنا كوتشوجين marka aad iyo aad baan arinta ugu adkeenaya waana salaamaya dhamaan reer Khaatimo oo dhan meel jooganba aad iyo aad u mahadsan tahay naftaydu markaan urka hooyaday haddii ayan dabaylurin awood male naftaydu markaan urka hooyaday ifka uga soo baxay anigoon anfaca baran عبرت بعودي سود قلب كيبو هنغريو عرلي غيرو بينانكو أديغو عدوك إلى شو آيا كتاليان أحدكو ملايان عرلي غيرو عدوك إلى شو آيا كتاليان أحدكم مريان عرلي غيرو متكسكر ديكا أبالغي عدو سيدلك رسومو غفرت سومو سكرتك أبالغي أدور سيقلك رسومو غفت سومو أفعادي نعني صومو بيها قوم بحي صومو عبالي ناس كنيض هاي صومو أفعادي نعني صومو بيها قوم بحي صومو عمهي ناس كنيض هاي صومو عملوغا هارينا تهي صومو دحلو وإنا تهي صومو إساق إنو كليا هاي صومو عملوغا هارينا تهي صومو دحلو وإنا تهي صومو إساق إنو كليا هاي صومو وحسيد كور سماتا أرلي غيغو إربكا مريد كارو أقول ياري كل شغنك ويدو وحسيد كور سماتا أرلي غيغو إربكا مريد كارو أقول ياري كل شغنك ويدو
aloolkay rarkaba aqalkan ka helayo qudubkiyo dhigihiyo aloolkay rarkaba aqalkan ka helayo haddaan dibadaado cajasho itimaadana kilaysoo aminaye ilkay ku yilo arligaygo haddaan dibadaado cajasho itimaadana kilaysoo aminaye ilkay ku yilo arligaygo ogalaado adduunyada intaan jiro waajibkaaga oobsha axdi kuugu maraya carligaygo inaan ku ogalaado adduunyada intaan jiro waajibkaaga oobsha axdi kuugu maraya carligaygo saka ordeka abaldhice adoonsiga la jira soo mooga horta soo mooga midka saka ordeka abaldhice adoonsiga la jira soo mooga horta soo mooga noloshiisa oo idin soo mooga waxay ku ambaqaadaba soo mooga aqoontaada inay tahay soo mooga noloshiisa oo idin soo mooga waxay ku ambaqaadaba soo mooga aqoontaada inay tahay soo mooga hablooga harinaad tahay soo mooga dhaxalawowa inaad tahay soo mooga isagu inuu ku leeyahay soo mooga hablooga harinaad tahay soo mooga dhaxalawowa inaad tahay soo mooga isagu inuu ku leeyahay soo mooga waxseed ku ursamaadsa arligaygo mirbadka maridi karo aqoon yare bulshadana ku eedo waxseed ku ursamaadsa